madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa lagu toogtay dhegta xilli uu ku guda jiray ololihiisa doorashada. Weerarkaas oo ay cambaarayeen madaxda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, waxaana lagu wadaa in la baaro isku dayga dilka ah. Toogashadan oo dhacday Sabtidii ayaa dhiig badan ka daatay wejiga Trump, waxayna argagax ku beertay kumanaanka qof ka qaybgalayay isu soo baxa magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa sheegay in musharaxa madaxtinimada ee Jamhuuriga uu si wanaagsan u shaqaynayay toogashada kadib, taasoo hogaamiyihii hore u sheegay in uu ka daloolay qaybta sare ee dhegta midig. Ugu yaraan hal qof oo ka mid ah dadkii daawanayay ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen maamulka. Sirdoonka ayaa sheegay in ay toogteen ninkii looga shakiyay weerarka. Waxa uu muuqday in uu afka ka yiri dagaal. Markii dambena ayaa masrax laga bixiyay oo baabuur la saaray. Waxaa la igu toogtay xabad ku dhafatay qaybta sare ee dhegta midig, ayuu Trump ku yiri bartiisa bulshada ee kadib toogashada. Dhiigbax badan ayaa dhacay. FBI-da ayaa weerarka ku tilmaantay isku day dil, waxayna sheegtay in ay hormuud ka ahayd baaritaanka kiiska. Kevin Rojek oo ah afhayeenka hay'adda ayaa sheegay in saraakiishu ay aqoonsadeen ninka toogashada geystay, balse ma bixin doonaan faahfaahin. Waxa uu intaa ku daray in aan ilaa hadda la ogeyn sababta ka dambaysa. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee la isku dayo in lagu dilo madaxweyne ama musharax madaxweyne tan iyo markii la toogtay Ronald Reagan sanadkii 1981. waxa uu ka soo aadiyay jawi siyaasadeed oo aad u cakiran. Kaliya 4 bilood ayaa ka harsan doorashada madaxtinimada, waxaana maalmo ka harsan tahay in Trump si rasmi ah loogu magacaabo Jamhuuriga musharaxa shirweynaha xisbigiisa, kaas oo ololihiisa sheegay inuu u socon doono sidii looga talagalay. Ma jirto meel Ameerika ka mid ah rabshado noocan oo kale ah ka dhaca. Biden oo kula tartamaya Trump inuu yahay musharaxa Dimuqraadiga ah ayuu hadalkiisa ku yiri waa jiran tahay. Ron Muse oo ah taageere Trump oo ku sugnaa isu soo baxa ayaa ku tilmaamay foodada. Waxaan maqlay ilaa 4 xabadood, waxaanan arkay dadkii badnaa oo hoos u dhacay. Kadibna Trump si dhaqso ah ayuu u duray, kadibna sirdoonkii oo dhan ayaa booday oo ilaashaday isla markii ay awoodeen. Waxaan ku hadlaynaa ilbiriqsyo gudahood, dhammaantood way ilaalinayeen. Isaga waxa uu sheegay in uu markaas arkay nin ordaya oo ay irinayaan saraakiil ku labisan dareeska ciidamada. Wuxuu sheegay inuu maqlay rasaas dheeriya, balse uusan hubin cid riday. Waxa uu xusay in waqtigaas ay kooxo wax tooganaya ay duldhigeen saqafka baqaar ka dambeeya masraxa. Rasaasta ayaa u muuqatay mid ka timid meel ka baxsan aagga, ayaa xaqiijisay waaxda sirdoonka Mareykanka, sida wakaaladda warar Al Jazeera u sheegtay. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee aqalka sanadka Mareykanka David McCormick oo ku fadhiya safka hore ee isu soo baxa ayaa sheegay in uu bilaabay in uu masraxa kor u kaco markii Trump uu sheegay in uu mar dambe soo bixi doono 1 ama 2 daqiiqo gudaheed. Waxaan maqlay rasaasta, way caddahay inay xabad ahayd, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxay dareemeen inuu ahaa isku day dil, waxay ahayd mid argagax leh. Weerarkan ayaa waxaa cambaariyay madaxda labada dhinac ee siyaasadda isku haya falkan naxdinta leh ee rabshadaha siyaasadeed ee ka dhacay isu soo baxa ololo nabadeed. Meelna kuma laha dalkan, waana in si wadajir ah oo xoog ah loo cambaariyo. Afhayeenka aqalka wakiilada ee Jamhuuriga Mike Johnson ayaa ku yiri baraha bulshada. Hogaamiyaha aqalada sanadka ee Dimuqraadiga Jack Schumer ayaa sheegay in ay aad ugu naxeen waxa dhacay, una ku nafisayay in Trump uu badqabo. 2017 waxaa ka dhacay toogasho lagu dilay siyaasi sida cad, waxaana aragnay kuwa waalan ee bidixda fog oo ku dhaqmaya hadallo rabshado wata. Waqti hore waa in la joojiyo oraahda kicinta ah. Wakiilka Jamhuuriga Hardin Marjorie Greene ayaa tiri Dimuqraadiyiinta waxay rabeen in tani dhacdo. Waxay rabeen Trump inuu baxo sanado, waxayna diyaar u yihiin inay sameeyaan wax kasta si taasi
u dhacdo. Trump oo soo noqday madaxweynihii intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2021 si fudud ugu guuleystay musharaxiintii uu la tartamayay ee jamhuuriga horaantii ololaha, waxa uu si weyn u mideeyay hareerihiisa xisbi muddo kooban ku gacan seeray taageerada kadib markii taageerayaashiisa ay weerareen xarunta US Capitol Janaayo 6 2021 ayagoo isku dayaya inay meesha ka saaraan guuldaradii doorashadii 2020 ganacsadaha iyo xidigii hore ee telefishinka xaqiiqda ayaa sanadkaas soo galay isagoo wajahaya walaacyo badan oo dhanka sharciga ah oo ay ku jiraan 4 dacwadood oo kala duwan. waxaa lagu helay dembi ah dabayaaqadii bishii May inuu isku dayay inuu qariyo lacagaha xaqiijinta ah ee la siinayo jilaa aflaanta anshaxumada ah, laakiin 3 dacwadood oo kale oo uu wajahayo oo ay ku jiraan 2 isku daygiisa ahaa inuu meesha ka saaro guuldaradii doorashada ayaa lagu joojiyay sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee horaantii bishan oo lagu ogaaday in uu qayb ahaan ka badbaado in dacwad lagu soo ogo. Trump ayaa ku doodaya isagoon wax caddayn ah u lahayn in dhammaan 4 dacwad oogayaasha uu soo abaabulay Biden si ay isugu dayaan inay ka hor istaagaan inuu ka soo laabto xukunka. waa sida hadalku dhigay. Caruurta madaxweyne Trump ayaa baraha bulshada ku soo bandhigay naxdintooda. Kani waa dagaalka Amerika uu u baahan yahay. Eric Trump ayaa kor ku soo qoray sawirka aabihii oo dhiig ku daadanaya, dhabanada Fed hawada ku jira iyo calanka Mareykanka oo gadaal kululaya iyadoo ciidanka sirdoonka ay masraxa ka soo yaaceen. Donald Trump Jr. ayaa isla sawir ku dhijiyay X isagoo qoray weligay ma joojin doono dagaalka lagu badbaadinayo Amerika. waan ku jeclahay aabe maanta iyo had iyo jeer ee Bartakis.